Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada xigmado iyo talooyin ku saabsan nolosha. Ha niyad jabin haddii aad tallaabo dib u qaaddo nolosha. Ogow, leebka iyo warankuba waxay u baahan yihiin in dib loo soo jiido si ay riddadooda u dheeraato. Carabkaagu yuusan noqon mid lagu sheego ceebaha dadka. Adiguba waxaa tahay ceeb soconaysa. Dadkuna waxay leeyihiin carab sidaada oo kale. Naftaada ha lumin adiga oo ka fakiraya maxay dhaheen iyo maxay sheegeen. Rabbiga ku kalsoonaaw, kadibna naftaada, maadaama ay bashar yihiin ma awoodaan wax aan hadal ahayn. Haddii aad marka hore warankaaga la weydo bartilmaameedkiisa, ha ka fikirin sababta aad u gaftay, balse soo qaado waranka labaad oo ka fikir sida aad markaan si saxan ugu tuuri lahayd. Haddii uu qof dhabarka kaa qaniino, ogow inaad adigu ka horrayso weli. Akhlaaqda qofka waxa ina tusisa sida uu la dhaqmo kuwa ka liita, ee ma aha sida uu la dhaqmo kuwa ka sarreeya. Wax kasta oo aad baratay waa ku celinta wax horay u soo dhacay, balse adigu aanad u soo joogin oo aanad ogeyn ama aad carruur ahayd. Sidaas awgeed ka waraysa dadka kaa waaweyn khibradahooda nololeed. Wax kasta oo bataa way biyo dhacaan marka laga reebo garaadka. Mar kasta oo garaadku bato, waxaa bata qiimaha uu ku dhex leeyahay bulshada. Hadalka badanna waxa uu daliil u yahay garaad yari. Dad badan dhegayso, dad yarna la sheekayso.